عليكم ورحمة الله وبركاته وورسن تي في iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Abaadir barnaamijkan waa barnaamijka talo iyo tusaalo ee aad mar walbaba talooyinkiina wanaagsan ee fiican aad ugu soo gudbisaan bulshaweynta Soomaaliyeed talada oo noqon karta marka dhinac kasta ee qusaysa arrimaha bulshada ee aad ugu tabarucaysaan bulshaweynta Soomaaliyeed hadda se aan u gudbo qadka telefoonka iyo ruuxa markaa ku jira. Hello walaal magacaaga adoo noo sheegayo iyo meesha aad ka soo hadlayso. walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Xabiibo Cali Faarax. Xagee? London baan ka soo hadlayaa. Xabiibo taladaadu caawiyo ku socotaa maxaysana ka hadlay? Taladayda caawiyo waxay ku socotaa walaalo dadka maanta wadankeena Soomaaliya qasaya. Okay, maxay tahay taladu markaa? talada waxaan siin lahaa waa in laga tashtaa qablayaasha wadanka qasaya ee loo daraya dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed iyo maskiinta ku hoos nool oo aan la fiirin ayaga dadku ay u danayaan masaakiinta iyo haweenka walaalo. gartay talada inay mid guud tahay dhici karto in dadka ka tashanayo waa Soomaalida guud ahaan ayaad ka wadaa Soomaaliya. guud ahaan Soomaalida anigu qabiilka kala saari maayo. gartay waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta soo kacaysa aan dawlad la kowsan ee adduun aan arkin maanta waa in loo daneeyo haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed wadujeeda wadankeena uu burbursan yahay problem baa haysta marka saas daraadeed walaal waxaan leeyahay sheegay dhalinyarada waa inaan ka tashanaa maanta arrinta mana jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ka tashtaan waa garan walaal aad iyo aad u mahadsan tahay. Assalaamu alaykum. Alaykum asalaam waraxmatullaah. Hello assalaamu alaykum. walaal codkaaga kor u qaad. Alaykum salaam. Noo sheeg magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlay. magacaygu waxa la yiraahdaa Sahra Cali. Sahra xagee ka soo hadlay? waxaan ka soo hadlaa wadanka UK. Sahro taladaadu walaal maxay tahay yeena ku socotaa? waxay ku socotaa haweenka Soomaaliyeed oo wadankan joogaan. gartay maxaa markaa ay taladu tahay? taladoodu waxay tahay waxa waa haweenka Soomaaliyeed caruurtooda badanaa 100% ma yaqaanaan Quraanka 114. haye marka waxaan ugu tali lahaa meel diiniyan inay geeyaan oo Quraanka 114 ay baraan. gartay waa tala aad iyo aad u fiican marka saacadaha caruurta waxa moodaa in 8 saac ay hurdaan 8 saacna iskuul ay jiraan 8 saacna ay guriga joogaan 4 saacna walaal jaanis ma ku haystaan caruurta wax ay ku bartaan Quraanka ay ku bartaan. marka xageed gelinaysa waqtigee aad dhex gelin kartaa isleedahay hooyooyinka inay Quraanka ciyaalka geeyaan ama ay baraan? aniga waxaan isleeyahay aniga aan xaalidey lahaay oo si karaaba inay nacam waqtiyada iskuulka ay ka soo baxaan ama iskuul waxa jiro islaami oo private school ah. gartay iskuulada state oo kala private oo kala in la geeyo. adigu Sahra aan ka dhax galay caruur ma leedahay walaal? walaal goormay geysaa Quraanka? Quraanka aniga caruurteeda iskuul private ay dhigtaan. marka manhajka iskuulka ayuu Quraanka ku jiraa Soomaa? walaal marka waa garanay waqtiga waxa moodaa inuu cariir ku yahay waqtiga iskuulka soo baxaan waa talo wanaagsan aan rajeynayno marka inay iyagu taa ku dayaan inay marka ka dibdib ilaahay kuma weydiinayo ma ogtahay kul jaamacada ku soo baxay wiilkayga iyo wuxuu ii bartay maxalada English oo ii bartay kuma weydiinayo ma ogtahay wuxuu ku weydiinayo fariisto waxay taa 114 Quraanka ilmaha maxaa ku hadeysay waa runta qiyaamo markii la tago marka waxaan dhihi lahaa aniga ilmaha inay diinta horta fariista ay ku barbaariyaan kadibna waxbarashada kale ay u sii zaaidiyaan. waa talo wanaagsan. yaa walaal waa talo wanaagsan aad iyo aad u mahadsantahay. maadaamadan walaal assalaamu alaykum. assalaamu alaykum. alaykum salaam wa rahmatullahi walaal magacaaga meeshaad ka soo hadlayso? magacayga Ikraan baa la yiraahdaa. London baan ka soo hadlayaa. London aad ka soo hadlay. taladaadu Ikraan maxay tahay yeesa ku socotaa? taladu waxay ku socotaa maxay tahay marka hore dadkan waxay ku socotaa shirka Djibouti kula Soomaalida ah. okay taladu maxay tahay walaal Ikraan? taladu waxay tahay maxay tahay 20 sanadood bay kulba maxay tahay dawlad qayrkood ay hoos fadhiyaan kulba ay dib u heshiisiin iyo riwaayad aan waxba ka soconayn la fadhiyaan. marka maxaad kula talinaysaa? waxaan kula talin lahaa kulli waxa laga hadlayaa waa dalkiina iyo maxay tahay dadkiina oo nabadgelyo lagu soo dabaalo. marka maxaad leedahay walibana taa uu garanayaa wax qof waliba uu ka madaxadaygayo. haye marka marba wada shir lagu qabto la isugu yimaado la isku arkay inuu faa'iido soo wadin ma ku sheegi lahaa iyaga u sheegi lahaa. gartay maxay
yeelay dadka wadanka gudihiisa joogana markay xabashidu gumaadayso nin Soomaaliya markuu nin xabashi dila ama uu gowraco dadka dawladdu maxay u yiraahdaan ma maqlaysaa waan maqlay walaal waxaan rabnaa talada marka aad u soo gudbinayso aad isleedahay ha ka faa'iideystaan inaad ka faa'iideysan xabashidu waa cadow okay marka waxaad u tusaaleen waa arinta dadkii maxay yeelay dagaalkii xabashida lagu gacmo ku go'an baa xalad dhexdeeda jooga maanta hortoodana dadkii lagu gowracay hadana dib loo leynaya oo xabashigii leynaya marka gabagabadii maxaad kula talinaysaa gabagabadii waxa la xabashigu waa cadow waa garanay wadankiina xabashiga ka saara xabashiga naasreediyo iyo kii dadkiga sharaf ku malidina dadka muqdisho iyo Soomaaliya jooga sharaf iyo sumcad ku leeyihiin okay waa taladaad soo gudbisay waan ka guddoonaa waayahay walaal maxasantahay salaam alaykum daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka halkan markaa waxaan ugu mahad celinaynaa intii soo wacday ee taladooda ugu tabarucday bulshaweynta Soomaaliyeed iyo intii kale ee markaa kala socotay TV-ga kulligiina waxaan idin leenahay waad mahadsantihiin inta iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu